saadaasha shanaadna waxaa la yidhi space tourism. Space tourism waa dalxiis lagu aadi doono xagga sare. Shirkado badan ayaa jiro in taleefankaaga aad ku jaajgaraysan doontid adigoo adeegsanayo dhirta ama geedaha. Assalaamu calaykum, waan idin salaam dhamaantiin. Kusoo dhawaada markii la yimi muuqaal cusub. Isku soo noqod wanaagsan. Hadday tahay markaad kugu horeysay channelkan, fadlan subscribe saar. Muuqaalkana like noo saar si dad badan uu u gaaro oo kaaga mahadcelinayo. Muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay future prediction ama saadaasha mustaqbalka 2030 ilaa 2050. Marka 2050 aan maqalno waxaa macquul ah inaan u maleyno inay muddo badan ay ka dhiman tahay ama ay fog tahay, balse waxaa ka hartay kaliya 30 sano ayaa ka hartay, wax badan ba kama harin. Wixii dhici karana waa la saadaalin karaa oo waa la saadaaliyay. saadaasha ugu horeysana waxay noqonaysaa wax la yiraahdo nanobots. Nanobots waa robot yar oo aad u yar oo jirka bini'aadamka la gelin karo, sidoo kale maskaxdana la gelin karo. waxaa la sheegay in mustaqbalka fog 2050 nanobotskaas yaryarka ah la gelin doono maskaxda bini'aadamkana ay ku xiri doonaan cloudka ama cloud computingka. saadaasha labaadna waa waxa ay yiraahdeen people reincarnation through AI. dadka oo la soo nooleyn doono qaab ayadoo la adeegsanayo teknolojiyada casriga ah oo AI-ga la yiraahdo oo loo soo gaabiyay artificial intelligence. dabcan macquul ma aha qof dhintay in la soo nooleeyo oo waan ognahay taas haddii aad tahay qof diin leh iimaan leh, balse sida ay gaalada sheegeen waxay sheegeen in nanobotskaas yaryarka ah la gelin doono maskaxda bini'aadamka. sidoo kale qofkii dhintay, qof aad jeceshahay hadduu kaa dhintay tusaale ahaan, in qofkaas xasuusihiisii maskaxdaada laga soo heli doono oo informationkaas maskaxdaada laga soo heli doono. saas darteed DNA-giisana la isticmaali doono, qofkii dhintay DNA-giisa la isticmaali doono, sidaasna lagu sameynayo wax la yiraahdo virtual oo ah qofkii dhintay oo qaab virtual ahaan ah loo sameynayo. dabcan ma ahan qof sax ah oo nool oo caadi ah, balse wax kuu muuqdo oo ah sida waxaan hadda la yiraahdo Facebook metaada waxa la yiraahdo metaverse oo kale. wax virtual ah oo qofkii u eg ayaa loo soo saaraya oo la sameynaya. inay suurtoobi doonto in kale Allahu a'lam, Ilaahay ayaa naga og. haddii aad rabtid marka inaad wax badan kasii ogaatid, waxaa jirto film laga sameeyay oo la yiraahdo The Discovery. qaybta description ayaan soo dhigi doonaa asagana, haddii aad xiiseynaysid inaad wax badan ka ogaatid halkaas ayaad ka heli doontaa. saadaasha saddexaadna waxaa la yiri AI-ga ama artificial intelligence-ga ayaa noqon doonto mid shaqooyin badan dhiirigeliso. dabcan markii sanadahan dambe ay soo baxday AI-ga waxaa la yiri AI-ga ama artificial intelligence-ga shaqooyinkii bini'aadamka ay qaban jireen ayay meesha ka saari doonaan, balse mustaqbalka fog waxaa la yiri AI-ga laftirkiisa ayaa shaqooyin badan dhiirigelin doono. dabcan hadday wax soo kordhaan oo dunida wax ku soo kordhaan, waxaas ayaga laftirkooda waxbay sii ziyaadin doonaan oo waxbay soo kordhin doonaan. marka waxaa la yiri AI-ga ayaa shaqooyin badan dhiirigelin doono oo fursado badan oo shaqo ayuu abuuri doonaa AI-ga laftirkiisa. midka afaraadna ama saadaasha afaraadna waa waxa la yiri IoT oo laga soo gaabiyay Internet of Things ayaa waxay bedeli doonaan qaabka productiga loo design gareeyo. yacni productiga qaabka loo design gareeyo waxaa la isticmaali doonaa IoT ayadoo wax la design gareynayo. IoT ama Internet of Things waa waxyaabaha physicalka ah oona smartka ah oo la programiyay, waxaana la sheegay in wax walbo ay ku xirmi doonaan cloudka iyo internetka. cloudka dartan wuu soo badanayaa ama cloud computing waxa la yiraahdo. mustaqbalka fogna cloud computingka ayay wax walbo aadi doonaan. sida badanaa hadda shirkadaha badanaa caalamka waxay isu guureen badankooda ama ay isticmaalaan cloud computingka. haddii aad rabtid inaad cloud computingka baratid, waad baran kartaa. waxaana kamid ah maadooyinka aad baran kartid sida AWS-ka, iyo sidoo kale haddaad rabtid Microsoft-ga ayadana way bixisaa waxyaabaha cloud computingka lagu barto. saadaasha shanaadna waxaa la yiri space tourism. space tourism waa dalxiis lagu aadi doono xagga sare. shirkado badan ayaa jiro oo haddartaanba sameeyo duulimaadka hawada sare oo la yiraahdo sida shirkadda SpaceX oo iska leeyahay Elon Musk iyo Blue Origin oo iska leeyahay ninka la yiraahdo Jeff Bezos. shirkadahaas hadda waxay sameeyaan inay cirka ay u diraan dad ayagoo adeegsanayo teknolojiga casriga ah, balse mustaqbalka fog waxaa la sheegay in dalxiisba loo aadi doono halkaas sare ee samada ah. waxaad isbuuc kusoo qaadan doontaa orbitka. sidoo kale waxay sheegeen in dalxiiskan uu kaliya anfacayo ama ayba suurtagal u tahay dadka taajiriinta ah. haddii 100 milyan aad ku bixin kartid hal dalxiis, dabcan dalxiiskaas waa kii lagu talagalay dadka taajiriinta ah kaliya ayaa ka bixi kara barnaamijkan. dabcan aniga iyo adiga oo kale uma maleynaa inaan ka bixi karno. saadaasha kalena oo xigtana waxaa la yiri self driving cars-ka ama baabuurta iskooda isu wada ayaa noqon doona kuwo la isku halaaya 100%. dabcan sanadahan dambe waxaa jira baabuur iskooda isu wado sida Tesla oo kale baabuur iskooda isu wada ayay sameysaa. sidoo kale shirkado badan ayaa jira ayagana oo sameeya baabuurta iskooda isu wada.
laakiin sidaan wada ognahay khatartooda way badan tahay oo badanaa la iskuma halleyn karo. waxaa la sheegay mustaqbalka fog ama 2030 ilaa 2050 in baabuurta iskooda isu wada la isku halleyn doono, dabcan shiralkoodana ay aad u yaraan doonaan. saadaasha xigtana waxaa la sheegay in taleefankaaga aad ku jaajgaraysan doontid adigoo adeegsanayo dhirta ama geedaha. balse ma ogtahay in dhirta laga sameyn karo koronto? shirkadda la yiraahdo Bayo ayaa sameynaysa koronto ayagoo adeegsanaysa dhirta. taleefankaaga ama wax walba aad inaad jaajgaraysatidna waxaa ku jaajgaraysan doontaa dhirta. haddaad rabto inaad wax badan ka ogaatidna ama sida ay macquul galka u tahay in koronto laga dhaliyo geedaha, muuqaal ayaan soo dhigi doonaa description-ka, kaasna ayaad ka heli doontaa macluumaadkaas. sidoo kale saadaasha xigtana waxaa la sheegay in badda biyaheeda laga sameyn doono koronto. marka kuleylka ama heerkulka badda uu ziyaado waxay sameysaa wax la yiraahdo thermal energy. tusaale, qaybta kore ee badda markii ay biyaha qaybtooda kore markii ay kuleylka tahay, qaybta ugu hooseysana ay qabow tahay, temperature-ka u dhaxeeya ama temperature difference-ga u dhaxeeya labadaas ayaa laga sameyn doonaa koronto. waana renewable energy oo waa energy hadduu dhamaado la soo celin karo. tusaale, biyahan kaama dhammaanayaan, mar walba oo koronto loo baahdana waa laga dhalin karaa. midda xigtana, saadaasha xigtana waxaa la yiraahdaa drone solution, oo meelo aanan bini aadanka aysan arkin ama aysan gaari karin soo sawiri doonto ama kasoo sameyn doonto sawiraan ama map. drone-ka waa diyaaradaha yararka ee wax lagu duubo, balse teknolojiga casriga ah sanadaha soo socdo waxaa la sheegay inay casriyoobi doonto oo meelo bini aadanka aysan gaari karin ay baashaas gaari doonto, ayna iskaan gareyn doonto meeshii loogu talagalo, ayna sameyn doonto map 3D ah oo ku saabsan meeshaas ayada ah. saadaasha ugu dambeysa oo ah midda 10aadna waxaa la sheegay in shaqooyinka hadda jiro haaf ka mid ah la weyn doono 2050. teknolojiga markuu casriyoobo oo AI ay soo baxdo ama artificial intelligence, waxaa meeshaas ka baxaayo shaqooyin badan ay bini aadanka qaban lahaayeen. sidoo kale sidaan hore u sheegnayna AI-ga laftirkiisa ayaa dhiirigelin doona shaqooyin badan, balse mar walba ay wax sii casriyoobaan waxyaabo hore oo laga guuro ayaa jiro. dabcan shaqooyinka hadda jiro waxay noqon doonaan kuwo laga guuro qayb ka mid ah ama haafkoodaba oo loo guuro kuwa casri ah. haddii ay jiraan macluumaad kale oo aad nala wadaagi kartid qaybta commentiga nagula wadaag. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii intaan aad soo gaartay waan kaaga mahadcelinahay daawashada. fadlan muuqaalka like saar, asxaabtaana la share garee. intaan ku kulmayno muuqaalkan muuqaalka xig waxaan iskaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.